lafdhabarta koowaad ee dhaqaalaha Somaliland waa xoolaha. Sanadadii ugu dambeeyay waxaa soo food sartay abaar baahsan oo ay ku leedeen xoolo tiro badan oo ay dhaqan jireen bulshada Somaliland. inkastoo abaaruhu yihiin qadar alle oo aan la baajin karin, haddana ma jirto qorshe lagaga gaashaaman karo oo ay xukuumaddu salka u dhigtay. labadii sanadood ee u dambeeyay waxaa Somaliland ka dhacay abaar baahsan oo taabatay dad iyo dunyaba, waxaanay taasi keentay inay bulshada Somaliland u jeestaan wax soo saarka beeraha si looga faa'iideeyo bulshada. waxaana isu soo taraya muwaadiniin la yimi hal abuur cusub oo ku dayasho mudan.